السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي ما أنت waxaan wada quraac inaba aan caadi ahayn alaabtan hilib ma ahan waa keliyaha hilib soo maar jamac ahaan hilib aan la isku dhaca laakiin way sii kala baxbaxaan okay anyway keliya waaye keliya bataati muuse aan ku samaysanay bisfashidnay usoo qaadanay canjeera u dubanay burka madow aan kasoo samaysanay inaba caadi ma ahan alaabtan si yaroo fudud baan u samaysanay soo baxay raaca dadka keliyaha necab hadday kula degan yihiin aan cuninin alaabtan la ugu tur halkaas saddex xabo baradha noogu jirta waa soo dhaqanay waa soo fiiqanay waana soo jarjaranay waa noo diyaar sidoo kale halkaas keliya ayaa noogu jiro keliyaha keliya lo waaye si fiican iskaga soo dhaq halkaa digir saddex laba nooca iyo waxaa noogu jirta yaanyo aan soo jarjay digirta waa fajooli iyo mais halkaana kusoo haray xawaajiyo waa ku halkaa 10 nooc weeye waxaas ujeedid barbarooniga shiidaana waxa weeye huruud baqdoonis oo bulvarka ah waxaa ku jiro organa ku jirto waxaa ku jirto xabad soodo waxaa ku jirto cusbo waxaa ku jirto sinjibiil inaba caadi maaha halkaa baby tamaad iyo basal waaye sidoo kale halkan basal gaduudan iyo toon iyo waxaa noogu jira baqdooniska freshka ahaa alaabtan inaba caadi maahan halkaas subag iyo caanaa noo yaalo ama ismoor halkaa qal ayaa noogu jiro lindhanaan qal iyo lindhanaan labadooda oo isticmaalina bahashaasi si kale usoo urtaa ma fahanti keliya wadankii ma aqaan keliya wadanka khatar bay ahayn waxaasna waa cusbo kuwaansi si kale usoo urayaan samee haddaa istiraada laakiin aniga casharaan buu dhigay waxaasoo gridora u isticmaalay qal iyo liinna waa ku daray biyihii ayaan soo karkarsaday cusbo ayaan ku daray hadda baradhada ayaan hor bilaabayaa baradhada waxaan sameynayaa markay noo bislaato insha allah waxaan ka dhigan doonaa bataati muus asxaabi alaabta caadi maaha haddaad ogtahay qof aan keliyaha cuninin saan ugu samee ani dadaan keliyaha cuninaas la joogo waxaan sameeyaa markay baasha fahmi waaya ugu tuuraa noocaana ugu tuuraa ma fahanti laakiin sida kale waa maba kaa cunayaanba waayo urkeedii iyo wixiisi si kale usoo uraan keliyaha wadankan I don't know ani ma fahminin wixii oo dhan aan kasoo dilay calaa kulli xaal baradhada waxaad samaynaysaa sidaa rabta adigoo jijabso mashiin ku shiido ama maxaa la dhahaa gacantaada ku jijabi ama waxaa usoo qaadataa birtan oo wax lagu qaso oo kale kunta iyo ku qas aniga bahashaas aan u isticmaalay bahashaas biyo softy bay ka dhigaysaa inaba caadi ma ahan waa ujeedaa alaabta waxay noqotay yaa waxaad moodaa in oo kal iyo mooyo lagu soo tumay wax yar subaga iyo waxaan sameynayaa wax yar caana ayaan u isticmaalayaa isku walaaq intay kulushahay subaga ku dar aysan kaa qaboobinin ani baashaas ayaan usoo qaatay waa fahmi waayey si aan caadi ahayn igu walaaqda waa iska bedelay qaadaan soo qaatay qaadadaas si fiican iskugu dhexgeliyey bacda waxaan soo qaadanayaa oo tuurtooyinka fisba garadada lagu sameeyo waxaan rabaa diseen aad u qurux badan inaan keliyaha korkooda aan ku sameeyo ma fahantay bacdaas ayaan ku kurana xaggaas ayaan dhiganaynaa hadda waxaan aadaynaa keliyihii meeshaas saliideer ayaan ku shubtay hal qaado iyo laba qaado meelahaas sidoo kale hal qaado subag aan ku darsaday intaan ayaan isku soo shiilaya keliyaha bilis si fiican iskaga soo dhaq keliyahan waxay u baahan yihiin biyo qandac ina weliba ku dhaqdid keliyihii ayaan ku shubtay marka hore waan isku walaaqayaa sidoo kale waxaan ku darayaa qalkii iyo lindhanaantii qalka iyo lindhanaanta waxay ka dilayaan reexada dhanay ka dilayaan ma fahantay macaanna way kaaga dhigayaan dhadhan bay kuugu yeelayaan waxba biyaha ku darin biyana ha u isticmaalin sidaas ku dabool asagaa biyo dhalaya keliyaha iyakaa biyo dhalayo ani waxaan sameeyey waan daboolay wax yar kabacdi markuu biyo yeeshtay usoo noqday oo ujeedaaba hadda waa xoogaa weli way soo bislaatay basasha iyo yaanyadan ku daray waan isku walaaqayaa haddana waa la dhigayaa 10 daqiiqo kalaan sugayaa markaa is dhaho yaanyadu way bislaatay baa haddana waxaan sameynaya insha allah steebka kale u gudbayaa waa kaasaa yaanyadu way soo bislaatay ilaa hadda wax biyo umaan isticmaalinin ayada unbaa biyaha dhalaysay saas ayaa usoo wadanaynaa asxaabay alaabtan inaba caadi maaha waxaan sameynaynaa hadeertaan gridorkii ama xawaajiyadii isku jirjiray oo dhan baan ku darsanay isku walaaq kaale iska arag weli qudaartii kale kuma aan darinin laakiin haddaan ku darayaa insha allah saas xataa waad ku cuni kartaa haddaa rabtaa waa ka dayn kartaa laakiin annaga waxayagoo isku habaysanay haddaan ku daray karis badan waxaan uma baarada saasay hadda iigu bisishahay baaquligii foornada aan ku gelin lahaa waan soo diyaarsaday waxaan sameynayaa foornada koriga hoos u gee waa inay 10 daqiiqo wax ka yar ku jirtaa 9 daqiiqo ilaa 10 daqiiqo waa inay ku jirtaa waayo reeb wuxuu dhan waa bisil yihiin hadda wax u baahan ma jirto inay bislaadaan waxaan sameynaynaa hadda toontii ayaan ku dareynaa sidoo kale baqdooniskii iyo basashii gaduudneedna waanu isticmaali doonaa insha allah toonta marka u dambeysa caraf ayay siinaysaa kaaliska arag alaabtan asxaabeynaba caadi maaha indhihiina ayaa idiin macalin ah
waa keliya laga soo shaqeeyay ma fahamti waa laga soo shaqeeyay warka halkaas ku dhan yahay saas ayaan u wadanaynaa waxaan samaynaynaa basashii kale iyo baqdooniskii baan ku darsanay taas iskugu walaaq dab kale usii dhiman ma jirto daaquligeeda ku shub baradhadeeda korka ka saar ukunta inta gaduudan baan isticmaali doonaa insha allah hore foornada ka geli markaa kasoo bixisidna cun waay saas diseenka aadka quruxda badan ayaan ku samaysanay waxaan bacdaa ugu shubnayba waxaan rabnay diseenka quruxda badan inaan helno kaaliska arag korta horteeba ka noqotayba caadi maa walaa saas ayaan usoo wadanaynaa saxaabey waxaan sameynaynaa ukunta inta gaduudan ayaan soo qaadanaynaa korkaan ka marinaynaa si baradhada ee kor gaduud qurux badan ay noogu noqoto amaba aysan gubanin oo dabku hafsiinin subag baa ku jira leena saa u marmari diseenkan ayuu kaa dhumin oo ha iska burburinin tartiib tartiib lee saas u saar ma fahantay si fiicanna way iskugu dhigaysaa alaabtan inaba caadi maa saxaabey haddaa ka hesheen insha allah waxaa fahmi weysaan commentiga saaxiibadiina usii shaargareeya annaga canjeera u dubanay waa ujeedaa baashii inaba caadi maaha weli waa kuleel maysan soo qaboobinin kaale iska arag macaankeeda yaa canjeero oo burka madow aan ka sameeyaan usoo habaystay insha allah iyadana mar baan ila soo wadaagi doonaa basbaaskayga shididka aan usoo samaystay koob shaaha bigays iyo cadeys maba lagu cabi karaba alaabtaan ma fahanteen koob shaaha oo bigays aan usoo samaystay yaa qoraacinaba caadiyana halkaa kasoo baxday asxaabi waa mahadsantiin daawashadiina insha allah waxaa fahmi weysaan commentiga ayaa inoo ballanay saaxiibadiina usii shaargareeya si ay uga faa'iidaystaan quraacdan macaanka badan oo quruxda badan oon waqti badanna kaa gelininin wixii laga sameeyey iyo wixii lagu daray oo dhanna aad ogaanaysid oo ah wax gurigaaga aad ku samaysatay wax walba waxaa ka muhiimsan inaa adiga gacantaada waxyaalaha diyaarka ah inaa adiga gacantaada ku samaysatid baa muhiim ah ma ahan waxyaalaha diyaarka inaad mar walba ku kalsoonaatid waa kaasaa aniga alaabtii ujeedaa saasee yaa waxay ku tahay wax kale ilaahay anoo daawayaa saxaaba mahadsantiin daawashadiina insha allah waa saa idin soo sameeya waxaa fahmi weysaane anaa diyaar idinle inaa idin fahansiiyo